السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبلين سلام يا ميل والبا وديك دعوانيسان يسي والبا ومركها أدين مقليسان با مقال كان لبا أرمود وكل دوان أيين وكل فلانقين دونا وحن مركها فلانقين دونا أرتي بدأ الصومالية يحاله جود بيجي محا كعصب يحوجا بدن أصاب حيو فلانقين دونا وحن كله وأن كهل دونا هبراعي لبوبي برلمان كلو حبوبي محا هبراع كوتشري محا دوكومنتي كوتشري محينا وجين يدوكومنتي أو سيدي سبعة نصار لقي دونه ولو متكي وآدم بدو بس حي هي معلومات بدل أو كتيرة أو عن رنتي سيدي للربي أنا بدل لو شيءنا رنتي وان فرانقين دونا سودا وادا ميل البو أتشوكتان يسوي البو أمريكا هذه مغلي سامبا هذه أنت بدأ إنه قبل لونه رنتي ودم بينتي وحبنان كيمادي حقيقة لحربتها وها شيسكي إثيوبيا قلك مقدر مصبح كسي حتى وها وياهي ayaa finally banaanka yimaaday waxaana mar kale aan rabaa inaan iraahdo aragtida aynu ka haysano heshiiskani iyo waxa ka soo bixi doona way ka khatar badan tahay waxa qarsoon ba ka khatar badan sida daraadeed waxaynu u maleynaynaa ama dadka inta ugu badan ay u qabaan dakad briski canshaada lagala soo dago inay Ethiopia raadinayso laakiin arrintu sida way ka duwan tahay warbaahin dalka Ethiopia oo waraysatay Muuse Bixi ayaa Muuse la weydiiyay bal inoo sheeg bal uu yiri su'aal ah bal wuxuu update naga si arintii aad memorandum of understanding ki aad kala sixateen Ethiopia bal warbixin naga si bay weydiisay warbaahin Ethiopia Muuse Bixi jawaabihii uu ninka u bixiyay waxa ka mid ahayd in Somaliland markaasi ay ka ijaartay base ciidanka badda ah wuxuuna u yahay base ciidan aysan ahayn dekad laga soo dago arrimo ganacsi iyo bariis uusan ahayn arinta markii ay timaaday runtii waxa markiiba isbedelay aragtidii laga haystay heshiiskani awal waxaynu fiirinaynay niman badeena qayb ka mid ah qabsada isla markaasna ganacsi iyo nolol ayaguna ay yihiin dad doonaya inay markaa helaan meel ay ka helaan dakada oo ganacsi ah iyo nolol laakiin taa way ka duwan tahay in la yiraahdo marka waxa la siinayaa naval base baa la siinayaa ama laga ijaaray macnaheedu waxay tahay inuu meeshan ka soo bixi doono waxa loo yaqaan proxy war ku waa dagaal dadka dagaalamaya ay isticmaalayaan dad kaleeto salaadii Mareykanka iyo Ingiriisku ay dagaalamayaan ay midna Soomaaliya isticmaasho من إثيوبيا استعمالان عدة استقالة إثيوبيا Soomaaliya ay tahay laakiin kuwa gadaal ka riixaya Mareykanka Ingiriiska yihiin waxa ba proxy war leeyahay meesha marka waxa ka soo baxay baa la yiri proxy war markiiba warbaahimaha caalamka oo dhan ayaa bilaabay inay falanqeeyaan proxy war ka meeshan ka soo socda iyo waxa uu yahay meel walba waxa lagu qorayaa in meeshan ay ka soo socoto proxy war waliba qatar badan u keeni doona Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed dawladaha saameynta ku leh dagaalkan proxy war ka ah inta la og yahay hadda inta qarsoon lama garanayo laakiin inta hadda la og yahay waxa kamid ah Imaaraadka Carabta oo ah actorka ugu weyn uguna saameynta badan regionkan iyo Red Sea waa ko Djibouti waa 2 Israel waa 3 Talyaaniga waa 4 Faransiiska waa 5 Ingiriiska waa 6 Mareykanka waa 7 inta la og yahay toddobadaasi dawladood ayaa directly iyo indirectly ba qayb oga ah waxa meeshan ka soo socda ee proxy war ka hadii aan isku dayo inaan wax yar idin ka xasuusiyo munaafaqada ay reer galbeedku ay leeyihiin waxay arkaysaa dadka iyaga oo si weyn u wadwada Mareykan baa Soomaaliya taageeray Ingiriis baa Soomaaliya taageeray hadalkooda markii aad duuxdo qaybta ugu horeysa oo aan hore oga hadlay ahayd hal la ixtiraamo madax banaanida dhuleed midda cireed iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya waxay gadaal ooga darayaan mar walba dad u fiirsataan hadalka la yiraahdo arrintaani hal lagu dhameeyo wada hadal isqabadsi Soomaaliya hal ixtiraam madax banaanideeda iyo wada hadal lagu dhameeyo waxa la doonayaa inaan ka gorgortano madax banaanideena iyo dhulkeena iyo cirdigeena iyo sharafteena la doonayaa inuu miisgeyno oo ka gorgortano finally waxay reer galbeedku furayaan masraxiyo annaga Ethiopia lagu wada hadashiyo
talyaaniga qaar hadda bilaabay inay meeting ugu yeeraan xasan sheekh maxamuud oo asbuucan talyaanigu tagi doona isaga iyo Ethiopia la fariisin doona kuwa kale ba ka dambeeyo imaaraadka ka dhici doona oo la doonayo in la fariisiyo horay kuwa wadacay Djibouti kuwa kalena way soo socdaan Ethiopia waxay raadinaysaa markaa waa naval base ama waa saldhig ciidan oo badda iyo cirkaba markaa wax laga weerari karo oo ay dawladaha reer galbeedka isticmaalaan saldhigaasi iyo meesha uu ku yaalana ay noqon doonto territory Ethiopia ay leedahay ama dhul ay Ethiopia leeyihiin hadaad ka warqabtaan sida Mareykanku uu sameeyo waxa arkaysaa jasiirad uu Mareykanku leeyahay oo kamid ah territory-ga Mareykanka ayaa waxay ku taalaa Yurub shadeeda balse uu ku yeesho lama garan karo sida daraadeed marka meeshan territory ay nimankaas leeyihiin balse annaga nagu dhax taala sida xalana oo kale ayaa laga sameeynaya waxa la doonayo way markaysa basekan Ethiopia hadda ay sarto inay sameysato waxa la doonayaa in marka laga weeraro Xuutiyiinta isla markaasna dawladaha reer galbeedka iyo Yuhuudda waxay doonayaan in Ethiopia noqoto dalka markaasi u qaabilsan dawladahaasi Red Sea iyo halka loo yaqaan Babul Mandab oo aan horay aan muuqaal uga sameeyay cid halkaasi waardiyaha uga noqota oo u jaajuusta oo amnigeeda u ilaalisa oo aan gacan muslim aan gelinin ayaa la doonayaa Ethiopia inay noqoto waa qorshaha ay kulligood ku midaysan yihiin waxaad ogtihiin in meeshaan ay tahay marinbadeedka ugu biisisan caalamka afartan dhinac wax ka deganaa dad muslimiin ay yihiin sida daraad marka cid la doonayo inay gacanta ku hayso ay maamusho waa dawladdaasi maxaa la yiraahdaa Ethiopia dadka qaar ba waxay leeyihiin Ethiopia way burburaysaa Ethiopia xataa hadday burburto oo ay dawlad kala timaado ama cid kala timaado saldhigga halka ka yaala iyo foreign policy Ethiopia isma bedelo Soomaaliya isma bedeshay Soomaaliya isma bedeshay Ethiopia isma bedesho tusaale dawladda ka horeysay waxay Soomaaliya kansaleen heshiiskii imaaraadka iyo Ethiopia la galay baa la kansalay DP World baa la kansalay xasan sheekh maxamuud ku soo laabtay daraad warbaahintu wuxuu ka yiri Ethiopia waxay 19% ay leedahay dekada Berbera marka maxay dekada uga baahantahay buu leeyahay Ethiopia has commercial interests in Somalia. Yes, in Berbera, they use Berbera port and they have a stake of 19% even in the ownership of the service of Berbera. وهالشيء كبرلمان كتلقيه لقد ضاضي لكن صلي قدام برلمان كصحيحي مدحونا الهرجي مدحونا نصحيحي إمارات ذلك لقى صاري حرر كان لوشري أيو حسب ما أنت وحوليها بربري لهذا مركزها Soomaaliya marka isbedesha oo aan siyaasad foreign policy fadhida aan lahayn Ethiopia ku isma bedelo 91 Soomaaliya markay burburtay Ethiopia ma burburay markii wada istaageen baadana qabsadeen arkaysa ana maanta haysta abi hadii caaw burburto ninka dambe oo qabso maxarka ah markiiba sidii wadan uu soo laabto anaga qabsanaya isma bedesho am xaaladu kuma kala fakir duwana aragtida ay Soomaaliya ka haystaan laakiin Soomaaliya ku kala aragti duwan aragtida Ethiopia ka haystaan qaar baa ku hay Ethiopia bana laakiin ninka Ethiopian ka Soomaaliya bana wali isku oranayo qodobka waa inta hadaan ku laabno qorshaha meeshan ka socda proxy war-ka ah aad si dhab ah u fiirsan isku xirkiisu waa ciidan Ethiopian oo lagu tababarayo Djibouti horena lagu tababaray ciidankaasi tababarka waxa siiyay dawladda Faransiiska waxa mushaaraadkooda bixiya ilaa hadda bixiya Imaaraadka Carabta ahdaafta laga leeyahayna waa inay Red Sea iyo dhulkaayo dhan ay ku matalaan oo ay gacanta ku hayaan Ethiopianku dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka markaa hadii la doonayo marka cidii la doonayo in lagu dhufto in ayaga lagu dhufto Faransiiska Talyaaniga iyo Ingiriisku waxay ka mid yihiin dawladaha ay noloshooda ku xiran tahay Red Sea waana sababta hadda Faransiiska iyo Talyaaniguba aysan qayb uga noqonin duqeymii Xuutiyiinta marka loo geysanayo wixii hadda ka dambeeyay marka dalka iyaga waxa dhexda loo gelin doonaa oo soo socota in Xuutiyiinta iyo Ethiopianku ay badahna ku dagaalamaan iyo in badaha iyaga Soomaaliyeed markaasi cidda inagu maamusha oo masuulka annaga nasarka naga noqota oo waxa inoo soo galaya ayagu ay maamulaan ay noqon doonto dawladda intaqaana Ethiopia anagoo fiirsanayna ayaa dalkeena laga xir doonaa xuduudda oo Ethiopia ay noqon doontaa cidda maamusha si hadda dhulka naga u maamulaanba arrintan la xiriirta waxaan ka hadlay arrintan Red Sea waxaan ka hadlay 15kii bishii January baan ka hadlay
muuqaalkii aan oga hadlay muuqaalkan u ahaa bartayda Facebook bartayda YouTube-ka muuqaalkii waa laga saaray abil baan dabcan inaan qaato abilkina waa liga diiday wax baalkii kuma jiraan wax bahalkii khalaq xuma kuma jiraan laakiin waxa bilaabatay in macluumaadyada siraha loo arko ee qotada dheer ee ay dadka Soomaaliyeed qayb ka mid ay sheegayaan lama ogola in ay ummadda ogaato mid walbana waa laga saaraya waa muuqaalkii afraad oo muddo yar oo kooban bartayda YouTube-ka laga saaro ayadoon wax violation ah iyo problema usan muuqaalkaygu lahayn waxa hoos loo soo dhigayaa hadda saamaynta YouTube-kaygi hoos baa loo soo jiidayaa nowadays sababta mar badan idii relax saara subscribe saara bal share gareeya maadaama waxaynu isticmaalayna ay kan kaliya tahay marka muuqaalkii hore nooga hadlay arrintaani waa la saaray kana waa suurtagal in la saari doono laakiin waxaan rabaa in ummadaydu fahanto qorshaha meesha yaalo oo dhan waa inta waa in badeena qayb ka mid Ethiopia inta qabsato xuutiyiinta lagu dhufto xuutiyiintana ay annagana la dagaasho halkaasna ay noqoto base-ka laga weeraro xuutiyiinta baabul mandabna marka ay gacanta ku dhigaan Israel Mareykanka iyo Ingiriiska iyo waxaan is wata Faransiiska iyo kuwana de qayb ay leeyihiin oo meesha way isticmaalaan qorshaha meesha yaalo oo dhan waa inta laakiin takada Ethiopia meesha hadda ka dhisanayso oo ay bariis iyo raashin kala soo dagayso oo ganacsi ama jiro dagaal proxy war aba dalkeena dhexda loo galiya dalkeena iyo dawladdeena ummadeena Soomaaliyeedna way daawanayaan ninkii Hargeysa ku qayilayay ee lahaa maxaa la yiraahdaa badda annaga iska muddo yar ka bacdi baynu arki doonaa halka ay dalkooda iyo deegaankooda ay geeyaan iyo ummadooda hadda nabadda ku sugan haddii caawa ay aadeen xuutiyiintii waxay ka helaan bay leeyihiin waxaan rabaa inaan u galo habraaci la boobay maxaa ku qornaa oo aadan ogeyn baan rabaa inaan meelo yar ka taataabto waan ka gudbi doonaa waxaa hortiina yaala isla habraaci uu aadan madoobe saxiixay koobigiisii oo soo gaaray dhowr meelood baynu ka fiirin doonaa habraacan la boobay waxa uu yahay iyo waxa warbaahinta loo sheegaya completely kala duwan yihiin arkaysa niman siyaasiyiin oo warbaahinta meelaha kale dhamaystirka dastuurka la dhamaystiraya la diidan yahay inuu qabyo ahad alka laakiin habraaca waxa ku qoran dhamaystirka dastuurka lama yiraahdo habraaca waxa la yiraahdaa habraaca ansixinta wax ka bedelka dastuurka inta dastuurka la dhamaystiro iyo dastuurka wax laga bedelaa waa laba toob oo shaqo isku lahayn wax ka bedelku saar loo dhigo noqon kara laakiin la dhamaystira waa la dhamaystiro way wax ka bedelku wax laga saaro lagu dar noqon kara wax ka bedelku wax lagu ziyaadiyo noqon kara laakiin dhamaystirku waa topic dadka marka warbaahinta u sheegaya iyo dadka in waxa la dhamaystirayaa ay dastuur tahay ma ahan waxba laga bedelayaa waxa lagu ziyaadinayaa dana shakhsi laga leeyahay way ahdaafta dhabta haddii aan dhowr meelood haddii aan dhowr meelood bal idinka tuso wax meesha ku qoran oo idinka yaabin doona qodobka toddobaad ee habraacan la boobay aan loo codaynin 7 daqiiqo gudahoodana aadan madoobe uu lacag ku qaatay inuu yiraahdo waa loo codeeyay number dadaana uu sheego xilli uu gudaha baarlamaanka dagaal ka dhex socday isqab qabsi waxa ku qoran qodobka dood markaad fiiriso waxa ku qoran oo ila akhrin kartaan dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu si ku meel gaar ah u dhaqan galayaa markii lagu soo saaro faafin rasmi ah oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya leedahay qodobka inta faham aan ku celinayaa waxa la yiri dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu si ku meel gaar ah u dhaqan galayaa وقاب تنبرئ بودا قنقلية وقرما مركي دولد أي سو سارتو وراق فعفنا وأي تراضو ودا قنقلي سوكو ملقار أيو ودا قنقلي أيو دا قنقلي يا بنير ومركي وحلاقة بدلك بعد بدولد سو سار دونتا وراق إلا هاي ودا قنقل تاس وقابك تنبرئ أما قابك كملقارك قابك كليتو أو رسمي جا إنه تستورك رصاص دقن كل قضاء أو رسمي جاينا ما هي كل حرطة وهي كل حرطة هاي بلا يري wuxuu si joogta u dhaqan galayaa baa la yiri markii lagu soo kordhiyo qodobo ka soo baxa heshiiska wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland ayuu si rasmi ah u noqonaya si kala markii loo dhigo midka tambariga ah waraaq xasan soo saaray ba tambari ka dhigaysa ama si ku taqaana ku meel gaar inuu dhaqan galay saxiix xasan bay u baahanta inuu si dhaqan galo oo mataqaana rasmi ah oo noqdana
heshiiska xasan iyo muuse hadda ay ka furteen Djibouti wixii ka soo baxaa markii la isku daro labadaasi waxooda ayuu si mataqaanaa rasmi ah uu noqonayaa dastuurka meeshaan markaa dhowr waxyaalood baa ku jira waxa ugu horeeya ku jira waxa weeye dastuurkeedu inuu dastuur rasmi ah noqdo waxay u baahan tahay in Muuse Bixi la qanciyo oo qodobo asagu leeyahay lagu daro ayuu noqonayaa maxaa la yiraahdaa dastuur rasmi markaas uu noqonayaa marka uu dastuurka ku meel gaarka uu noqonayaa dhanka xasan weeye midka rasmiga aana labadooda markay wada fariistaan ayuu noqonayaa mid rasmi ah dastuurkii marka ummadda ay lahayd xasan iyo muuse ayuu u xiran yahay way macnaheedu halkaasi ma aan hadal la garan kari waay ma aan waa Soomaali fudud oo simple ma garanay baarlamaanka Soomaaliya akhrin in kaleeto Muuse Bixi maadaama asaga la yiri uu ku xiran yahay dastuurka Soomaaliya oo rasmi noqdo hadduu Muuse yiraahdo caawa heshiiskii la galay Itoobiya la yeelo hadii kale ma yeelayo loo yeeli doona waa su'aal haddii se loo yeelo dhulka Soomaaliya qayb Itoobiya qaadanaysa miya ma garan karayo Muuse wuxuu la imaan doonaa arabna wuxuu la imaan doonaa laakiin Muuse la hoosgeeyay dastuurka inuu Muuse rasmi inta ka dhigata Muuse Bixi baa qodobka waa inta qodobka saddexaad markaad fiiriso isla habraaca la boobay waxa ku qoran qodobka saddexaad habraacan wax ka bedelka dastuurka farqadiisa saddexaad markaad fiirisaan waxa la yiri guddiga wax ka bedelaya waxay kaashan doonaan hay'adaha soo socda in dadka la doonayo in laga talageliyo si uu u noqdo dastuur ku meel gaar ah si loo dhaqan geliyo mid ku meel gaar ah si loo dhaqan geliyo dadka la tashanaya yihiin kow waa xafiiska madaxweynaha la tashanaya madaxtooyada la tashanaya labo waa kan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka waa wasiirada iyo rajaha weeye tasdaxaad oo maxkamadda sare tan afraad waa maxkamadda dastuurka tan shanaad waa xukuumadda dowlad goboleedyada waa wasiirada dowlad goboleedyada tan shanaad waa golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada waa baarlamaanka dowlad goboleedyada soo soco maamulka gobolka Banaadir culimada Soomaaliyeed bulshada rayidka arrinta markaad fiiriso waa 10 kooxood weey 10 kan kooxood 7 kamid ah waa Xasan Sheekh Maxamuud weey saddex baa ka maqan oo kaliya oo maxay tahay saddex baa ka maqan madaxtooyadu waa Xasan Sheekh Maxamuud xukuumaddu waa Xasan Sheekh Maxamuud maxkamadda sare ninka fadhiya isaga magacaabay waa isla asagi maxkamadda dastuurka waa isla asagi maxkamadaha madaxweynaha magacaab marka asaga hoos taga hadii xataa diidan wala tuuraya mid kale la keenaya gobolka Banaadir asagoo hoos taga Xasan Maxamuud hoos taga culimada Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud hoos taga cid uu rabo u yeeranaya boqol rag asaga waafaqsan baa loo yeeranaya kaliya bulshada rayidka sidoo kale waa isla Xasan waa 7 out of 10 gacanta Xasan bay ku jiraan dadka la doonayo in laga talageliyo in dastuurka Soomaaliyeed marka la dhameesto markaysan taasina waa mid xigto la yaab leh waxa lagu soo daray SSC Qaatumo ayaa lagu daray SSC Qaatumo isteeg la siiyay waa arrin fiican ma ka faa'iideysan doonaan saxaab baa lagu yeeri doonaa firdhiya mar kale to oo wixii hore kale inta loo sheegay ayuu dan tagi doonaa waa su'aal waqtiga uu ka jawaabi doono laakiin Janis bay nimankaas u heleen laakiin Janis bay SSC heleen qaabkii uga faa'iideystaan baynu arki doonaa dhanka kale markii aad fiiriso arrimaha kale oo la yaab kale oo ka dhaxarkay ayaa waxay tahay baarlamaankii boobka ku ansixiyay habraacan reer Somaliland baa ku jiray dabcan way ku jiraan 61 bay ku leeyihiin aqalka hoose xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah la doonayay inay wax ansixiso ra'iisul ku-xigeenka oo ayaga awood bay ayaguna qayb ka yihiin dalka dhan bay ka mid yihiin markii aad fiiriso maxkamadda sare ninka jooga waa reer Somaliland culimada Soomaaliyeed qayb bay ka yihiin waa loo yeeri karayaa ururada rayidka bulshada qayb bay ka yihiin dad badan oo cad baa la garanaya ayaga ah intaayo dhan dadka Soomaaliyeed bay la qabaan iska badaaye awood bay dheer yihiin oo markii aad fiiriso xukuumadda hadda cida hogaamisa oo heshiis walba hogaamisa meesha loo yaqaano waniga ra'iisul ku-xigeenka Xamse ma joogo marka aan ka hadli doono arrintaasi 17 kala fadhi bay golaha wasiiradu ay yeesheen intay xilka hayeen 14 kamid ah ra'iisul ku-xigeenka dalka ayaa hogaamiyay 3 kamid ah soo hartay ayuu Xamse hogaamiyay ninka labada sano dalka ra'iisul wasaaraha ka
saddex kala fadhi ayuu xukuumadda bas hogaamiyay inta kale muusan hogaamiyay taasoo muujinaysa marka inuu asagu hogaamiyo taqaanaa xukuumadda oo nin kale uu hogaamiyo oppositionkiisa uu nin kala fadhiyo marka dhinacaasna awood bay ka leeyihiin su'aashu marka maxay tahay waa maxay markaas sababta maadaama temporary ay qayb weyn ka yihiin reer Somaliland waayo sababta midkii rasmiga ahaana ee ayaga ugu xiranta labadan mashruuc markaad fiiriso qaybta hore oo la yiri si ku meel gaar ah ayaa loo ansixinayaa qaybta ugu badan awoodda ugu badan nimanka iska waa dad Muuse Bixi ka amar qaatay Somaliland ka yimaado qaybta kale markaad fiiriso oo rasmiga ahna عدل فاينل لا فريسان دوننا وموسى بيحي حكا دغيا dadka ka awood badiyeen dastuurku mis umada ka dhaxin su'aal kale oo aad maashi maraysa waa arrin kale oo muujinaysa inaynu ku dhex jirno trap ama inaynu ku dhex jirno dabin aanan aqoonin halka uu ku dhici doono marka ugu dambaysa arrintan socota marka waxaan bilaabay mucaarad xoog leh ayaa ka hor yimaaday oo u muuqata inaysan dhaafi karinin waxa garowe lagu aas-aasay madalla cusub oo mucaarad ah oo hadda inta la og yahay dad waaweyn ay ku jiraan ra'iisul wasaarayaasha hore dhan ay ka mid yihiin ayaa la sameeyay oo Sheekh Shariif iyo Farmaajo la filay xataa inay ku tarsanaan wix ay wali aysan wali sheegin laakiin inta la og yahay ilaa iyo 6 ra'iisul wasaare oo hore ayaa qorshahan ku jira garowna u noqon doonta geedo fadhi shir baa hadda lagu dhawaaqay garow la isugu imaan doono oo la doonayo Xasan in final la hadlo la yiraahdo arrintan jooji hadduu arrintan Xasan uu joojin waayo waxyaalaha aan ka soo xigtay siyaasiyiintii arrintaas u dhundulay waxa ka mid ahaa inay suurtagal tahay in baarlamaan qaarna garow fariisto qaarna xamar fariisto oo la yiraahdo aadan madoobe gudoomiye baarlamaan ma halida oo la yiraahdo mooshin baa garow lagu sameeyaa dawladda federaalka oo xamar laga guuro qaarna xamar ku xaran in la yiraahdo kudlad mucaarada oo badbaadinta qaranka magac loo bixiyay baa la sameeyaa la yiraahdo taasoo fadqala cusub dalka gelin doonta waana wixii aynu lahayn aynu ka jeesano oo difaaca badda aynu jeesano oo Xasan diiday in laga jeesano markaysa Xasan marka hore loo yeeri doona waxa Sheekh Maxamuud ee garow lagu yeeri doona waa la hadli doona Siciid Dani baa geed fadhi waa kudladahaasi ku qulqulaya garowe hadii marka uu diido soo jeedimaha la xiriira in arrinta la joojiyo ama banaanka la soo dhigo oo si ummadda ay ku qanacsan tahay loo furo ama la yiraahdo loo dhameystiro dastuurku Xasan diido in wax laga bedelo there will be a problem dowladnimada Soomaaliya ee awal xamar dhaafir ay laba u qaybsami doontaa midna garowe fariisan doontaa midna xaab ku har doontaa maxaa ka soo bixi doona wax la garanaya ka soo bixi doona oo taasoo ah in ummadda la kala qaybiyo in dowladnimada aysan heshiis lagu ahayn in baarlamaan kala qaybsamo in la yiraahdo Xasan madaxweyne maahan iyo arrimo kale inay burburto madasha wada tashiga qaran nimanka maamul goboleedyada qaybo ka bida ayaa arrintan ku jira ayagoo doonaya inaan la faragelinin in dib u soo laabtaan bay doonayaan sida qorqor oo kale sida lafta garoon oo kale waxayna garow ka sheegeen in ay tahay arrin fiican qofku mar la soo laabtay oo Siciid Dani marka la hadlay xashaq mid ku dhagaalay taasoo muujinaysa inay ku beeri doonaan badashan ku beeri doonaan saddexda ninba way ku beeri doonaan waa Ali Guudlaawe iyo qorqor lafta garab way ku beeri doonaan waxa kale oo ku beeri doona ugu yaraan ilaa 7 8 ra'iisul hore ku beeri doonta waxa ku beeri doona madaxweynaha hore ku beeri doona muhiimadu marka waxay tahay mucaaradkii Xasan la socday sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ayaa ku beeri doona waxay noqon doontaa marka in mucaaradkii ugu weynaa ee dawladda Soomaaliyeed ka hor yimaada inay garow fariistaan oo yiraahdaan dawladnimadii Soomaaliya waa lagu cayaa taasoo aysan suurtagal ahayn Xasan wax dhaqaajin karo halka maanta inoo muuqata haddaan waxba laga bedelinin ee loo socda waa halka dalka Allah badbaadiyo inta soo koobiya dib soo laabanayno waxaan ka tagay sanad wadiro assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh